la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Shamkhani ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta ugu weyn ee Iiraan marxaladan ay tahay diyaar garow buuxa oo looga hortagayo hanjabaad kasta iyadoo arrin kasta oo kale ay dib ka imaan doonto. Shamkhani oo la hadlayay warbaahinta Al-Mayadin ayaa waxa uu yiri fariinteenu waa caddahay dhaqdhaqaaq kasta oo muujinaya niyad cadowtinimo oo ka yimaada cadowga waxa lagaga jawaabi doonaa si u dhiganta wax ku ool ah oo ka hortaga oo ay ku jirto in la beegsado gudaha goobaha weeraradaas laga soo qaadayo. wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Iiraan aysan xadidin juqraafi ahaan goobta iska horbaadka oo aysan noqon doonin badda oo kaliya isla markaasna ay diyaarsatay xaalado ballaaran oo ay dagaalkan ku sii wadi karto weliba si adag. Shamkhani waxa uu ka digay in dagaalku uu ballaaran doono uuna gaari doono dhammaan dalalka gobolka ayna tahay arrin walaac u leh dhammaan dhinacyada isagoo tilmaamay in waayo aragnimadii hore ee Iiraan ay muujinayso dagaal kasta oo dhaca inuusan noqon doonin mid xadidan isla markaasna dab yar uu si degdeg ah isugu bedeli doono dab baahsan oo ka baxa gacanta kuwii qorsheeyay. waxaa sidoo kale uu tilmaamay in ballaarinta joogitaanka military ee Mareykanka ee khaliijka iyo badda Cumaan aysan ka macno ahayn awood sare isagoo tilmaamay in gobolkan bariga dhexe uu yahay gurigoodii isla markaasna kaga aqoon badan yihiin cid kasta gaar ahaan arrimaha juqraafiga awoodda iyo dhammaan xaaladaha difaaca in ka badan quwad kasta oo shisheeye taasina ay go'aamin doonto istiraatiijiyadda Iiraan ee difaaca iyo weerarka. Ali Shamkhani wuxuu ku dhawaaqay in Iiraan ay fashilisay qorshaha howlgallada cadowga isla markaasna ay si buuxda ula socoto isagoo adkeeyay in weerarada lagu beegsan doono meelaha bartilmaameedka ah inta xitaa aan la gaarin waqtigooda. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan haddii loo baahdo waxay adeegsan doontaa xulashooyin ka miisaan culus oo ka wax ool badan arrimo difaaca amniga qaranka iyo midnimada dhulkeena ayuu yiri mas'uulkan oo tilmaamaya in wax allaale iyo wixii mas'uuliyada iyo cawaaqibka ka dhashay arrintan dusha ay u ridan doonaan cid kasta oo isku dayda in ay dadka Iiraan niyad jabiso ama ay u muujiso awood military. Iiraan marka waxay leedahay annaga diyaar bana weliba waxaan heli karnaa xogta ah xilliga weerarka la qorsheynayo kadibna weerarka hortagan qaadi karnaaba. markan waxaynu eegaynaa magaalada Moscow ee dalka Ruushka halkaasi oo wada hadal ay ku yeesheen mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Iiraan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlinka ayaa xalay wuxuu xaqiijiyay in xogayaha golaha amniga qaranka Iiraan Ali Larijani uu booqasho lama filaan ah ku tagay caasimadda Ruushka xilli xiisadda Mareykanka iyo Iiraan cirka ay ku laaran tahay. bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Kremlinka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Putin uu qaabilay xogayaha golaha amniga qaranka ee sare ee Iiraan Ali Larijani oo booqanaya Ruushka iyadoo aan la shaacin ama faahfaahin dheeraad ah laga bixin waxa uu ku saabsan yahay kulankaasi iyo ajandayaashiisa. booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabayo faragelin military oo ka dhan ah Tehran isla markaasna ugu baaqayo inay heshiis gaarto gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka. Moscow waxay xiriir dhow la leedahay Iiraan waxaana ay soo bandhigtay inay diyaar u tahay dhexdhexaadin ay ka samayso Washington iyo Tehran. dhanka warbaahinta Israa'iil haddii aynu eegno waxaa la sheegayaa in Israa'iil ay Mareykanka la wadaagtay xog sirdoon oo la xiriirta barnaamijka gantaalada balastiga ee Iiraan intii booqashada uu ku joogay Washington. taliyaha waaxda sirdoonka ee militariga Israa'iil Major General Shlomi Bender hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa in Bender uu Washington booqday Talaadadii iyo Arbacadii aynu ka soo gudubnay isagoo bixiyay baa la yiri xog sirdoon oo ku saabsan barnaamijka gantaalada balastiga ee Iiraan. Israa'iil ayaa waxay qabtaa walaac ku aadan suurtagalnimada heshiis ku kooban barnaamijka nuclearka oo Trump uu la galo Iiraan. arrintaasi oo la sheegayo in aysan meesha ku jirin gorgortan la xiriira gantaalada balastiga ama dhaqdhaqaaqyada gobolka ka jira waa iska caabinta ee Iiraan ay taageerto. sida ay sheegtay hay'adda warbaahinta Israa'iil Mareykanku weli go'aan kama gaarin military ahaan inuu weerar ku qaado Iiraan laakiin Israa'iil waxay qiyaasaysaa in maamulka Mareykanku door bidayo
in uu dhameeyo geedi socodka wada xaajoodka ka hor inta uusan qaadan tilaabo military. Israa'iil waxay ka cabsi qabtaa in lagu laabto waxay ku tilmaamtay heshiisyadii aan dhammaystirnayn ee Iiraan, kuwaasi oo Trump uu ka baxay muddaxileedkiisii hore, gaar ahaan arrimaha dayacaadda arrimo ka baxsan barnaamijka nuclearka sida gantaalada iyo dejinta waqti kama dambaysa heshiiska. Arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Abbas Araghchi uu tagay magaalada Ankara, halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha waddankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Abbas Araghchi oo shir jaraa'id ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu si buuxda u sheegay in innaba haba yaraatay aan sinaba loo keeni karin miiska gorgortanka iyo wadahadallada gantaalada iyo awoodda difaaca ee dalkiisa. Araghchi wuxuu sheegay in Iiraan ay ka soo horjeedo in ballanqaadyo military ama barnaamij gantaalada lagu soo daro mawduucyada lagaga hortegayo ama lagu gorgortamayo, isagoo carabka ku adkeeyey in difaaca qaranka uu yahay mid aan laga tanaasuli doonin. Waxaa intaasi uu ku daray in wada xaajoodyada u baahan yihiin jawi aysan ku jirin hanjabaado, isla markaasna Maraykanka uu isticmaalayo cadaadis iyo hanjabaadyo military, taasi oo ka hor imaanaysa wadahadallo dhab ah. Araghchi ayaa ku sheegay warbarkiisa in Iiraan ay u diyaar garowday wada xaajood cadaalad ah, ha yeeshee sidoo kale ay diyaar u tahay inay ka jawaabto haddii loo baahdo difaaca dalka, taasi oo muujinaysa mowqifka adag ee ku saabsan madax bannaanida Iiraan. Waaya, haddaba halkan marka aynu dul istaagno, Israa'iil waxay qabtaa shaki. maxaa yeelay Trump waxaa la leeyahay ma hubo dagaalka inuu ku guulaysan doono. waxaana soo baxaya digniino ka imaanaya gudaha Maraykanka iyo xitaa xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka Maraykanka iyo mas'uuliyiinta aqalka cad oo ka digaya dagaalkan inuu halis geli karo dalaha Maraykanka, macnaha dhiiqa lagu halis ku geliyo. laakiin Israa'iil waxay doonaysaa dagaalka inuu dhaco. hadduu dagaalka uusan dhicinna saddexda shuruudood ee ugu muhiimsan meeshan in miiska la keeno oo ah gantaalada Iiraan inay soo gaari karin Israa'iil, Iiraan inaysan khatar ku noqon Israa'iil, Iiraan inay joojiso kooxaha ay taageerto iska cabinta iyo inay meesha ka saarto barnaamijka bacriminta uraniumka. laakiin Iiraan waxay taageertaa horta arrinta gantaalada maba laga wada hadli karaba. nuclear soo maahan, annaga nuclear maba rabno hubba. nuclearkana waa mid nabadeed, waana la kormeeraa, mana doonayna inaan samayno wax kale oo bacrimina. laakiin arrinta gantaalada maba laga wada hadli karo ay taageertaa Iiraan. arrinta iska cabinta la taageero waa booska saddexaad, laakiin labada qodob ugu muhiimsan waa labadaasi qodob. weliba qodobka gantaalada Iiraan waxa leeyahay marka ka gorgortami mayso. Israa'iil marka waxa leeyahay waxay ka walwal qabtaa in heshiis u dhaco. heshiiskaasina muxuu noqon karaa in aan la weerarin Iiraan. xitaa madaxweynaha Maraykanka waxaa la sheegayaa, oo sida saxaafadda ay sheegayso, in uu soo jeediyey Iiraan in loo geysto duqayn kooban oo waxyeelo aan lahayn, si madaxweynaha Maraykanka aan loo ceebayn oo loo dhihin Iiraan uu ka soo baqay, laakiin Venezuela wuu weerar. Iiraan waxay tiri maya, xabad haddii lagu soo rido 5 baridina bay taaginta. arrimo kale oo marka la yaab la soo baxay marka ayadoo arrinta halkan taagan tahay ayaa xalay waxaa la soo fogay 10,000 oo faylashii Epstein, ninkii ganacsadaha ee lagu eedeyn jiray in gabdhaha yararka jirkooda ku ganacsado. madaxweynaha Maraykanka laftigiisa sida warbixinta ay sheegayso liiska uu ku jira, magacyo ku jira. dad badan marka waxay isweydiinayaan Trump marka la cadaadinayo maxaa faylasha loo soo saaraa? ma waxbaa lagu ogyahay meesha? oo maxaa la oranayaa marka haddii anaga aan danaheena fulin waa suurtagal in anagana aan faylasha fagno. dad baa saas ku doodaya, weliba xitaa khubaro Maraykan saas ku doodaysa. waxay leeyihiin maxaa la iskugu soo beegaa arrimahani? ilaa hadda madaxweynaha Maraykanka isagu wuu beeninayaa ninkaas inuu xiriir la lahaa, jasiiradiisa inuu tagay, waxaasoo dhan wuu beeninayaa. laakiin macluumaadka la soo gudbiyey waxaa la sheegayaa, waa sida dalka loo dhigay, magaca madaxweynaha Maraykanka inuu ku jiro. dad badan baa ku jira. Bill Gates baa ka mid ah, Bill Clinton baa ka mid ah, dad badan baa ku jira. arrinta marka halkaasay maraysaa marka waynu arki doonaa wixii soo kordha.